Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhowaada daawadayaal, halkani waa kanaalka Maxamed the Freelancer. Caawa waxaan idin soo gudbinaynaa ciyaar dhex martay laba tiim oo saaxiibo ah. Labada tiim oo kala ah Team Napoli iyo Collection Team. Ciyaartan waxaa soo abaabulay Team Napoli oo ah dhalinyaro waqti dheer isugu dambeysay. Dhalinyaradan ayaa u badan rag jilib culus ah, ayagoo oo sidaan ognahay ah rag garoomada xerada ka ciyaari jiray waqti hore, balse hadda in waqti aan ciyaarin. Dhalinyaradan ayaa waxaa la sheegayaa in iskugu dambeysay 2016 xilligaas oo ah xilligii ugu dambeysay ee waxbarashadooda fasalka dugsiga sare. Caawa 5 sano kadib waxay soo bandhigeen ciyaar la yaab leh. Hase ahaatee, tiimkan Collection oo ah tiimkii kabtanka tiimka Napoli u ciyaaraya cawada yaa waxaa la sheegay waxaad arkaysaan in macnaha ciyaarta ay soo bandhigeen iyagoo tiim joogto ciyaari jira ah in ciyaarta laga wato. Hase ahaatee, Team Collection ayaa ku andacoonaya in caawa ay ka soo tageen ciyaartooy u ahaa cudub dhaxaad. Hase ahaatee, caawa waxaa garoonka wacdara ka dhigay daawadayaal. Weli ciyaarta ayaa socota. Ciyaarta caawa waa mid aan loo kala harin. Waad u jeedaan sida ciyaaryahanada ay isugu dhidhibayaan kubadda. Caawa garoonka waxaa wacdara ka dhigay Napoli oon laga filayna caawa waxay soo bandhigeen. Sidoo kale tiimka Collection Team oo ah tiimka ka soo horjeeda Napoli ayaa caawa ayay isu qaybinayaan kubadda si weliba xirfad ku dheehan. Arrintan ayaa dad badan soo jiidatay. Waxaa ila fadhiya halkan Xasan Aadan oo ka mid ah daawadayaasha ciyaarta habeenka ay dhaceysay. Xasan, sidoo horta ciyaartan caawa. ciyaarta maanta meesha ka dhaceysay caawa ayaa ciyaar aad u kala kacsan oo maasha Allah ah markii loo fiiriyo tiimka kale. Tiimka ay leeyihiin Napoli maadaama ay ahaayeen tiim kol hore iskugu dambeysay aysan ciyaarin kubadda, ayaa marka aad daawato ciyaartoodii ay kugu soo degaysa ay yihiin dad tababaro horaan u qaatay oo maasha Allah ah. Ninkan ay leeyihiin Haroun waa nin legend ah because bahasha dhan asaga kala wado oo kala durjinayo. Laakiin markaad fiirso tiimka Napoli oo caaw soo saaray, marka ninka asaga u aragtaa asaga qab ciyaarkiisa. ninka qabkayaarkiisa aad baa uga helay garoonkana wacdar weyn ayuu ka riday. Ninkaasoo ilaa uu u dhaliyay ilaa iyo 5 gool. Waa nin maasha Allah ah si fiican u ciyaarayay asagoo garab weyn ka helayay Maxamed Cumar. Asaga iyo Maxamed Cumar ayaa cabaar si fiican isku ciyaarayay baasha isku dhiibay. Okay, ka waran ayaga tiimkan kale. Okay, ka waran tiimkan kale ayaga ee ka soo horjeedo. Waa tiim ciyaara had iyo jeer oo joogto u ciyaaro sida banaanada garoomada iyo garoonkan hadda aan joognay caalamiga ah. Habeenkii iyo maalintii waa tiim ciyaaro. Ma is lahayd maanta hadday labadan tiim iska hor imaadaan, tiimkan ayaa arrintan sameyn kara mise ciyaar wanaagan soo bandhigi kara. Arrintan ma ku fikiraysay? Ani ahaan markii garoonka ay galayeen Napoli uma maleynaynin inay ciyaar noocan soo bandhigi doonaan, laakiin markii garoonka ay galeen wacdar weyn ay ka dhigeen meesha. Waa arkaysay markii hore 4 gool laga dhaliyay wayna soo baraajeen wayna ugu dareen. Marka micnaheedu waxay tahay in dad isku kalsoonay ahaayeen dad legend ah meesha socday maadaama Bologna aman hore ugu dambeysay xitaa. Aad iyo aad ninka la yiraahdo Cali Danto oo ah abaabulaha ciyaartan sidoo kale ahna kabtanka tiimkan Napoli. Waxaa la isleeyahay rag qaar waxay leeyihiin wuxuu u ciyaaraa tiimkan si joogto ah ula ciyaaraa. Sidoo kale waxay ka soo jeedaan isku xaafad. Caawa laakiin wuu ka hor imaaday. Markuu ka hor imaaday haddana arrin wuxuu ku sameeyay macna wacdara ah sida aan arki jirnay ciyaartooyda caalamiga oo tiimkoodii hore. Isaga ninka la yiraahdo Maxamed Cumar waxa ugu dambeysay kubaddu ciyaar 2016. Caawa ayaa haddana markii koowaad uu ku soo laabto garoonka. Caawna markaad fiiriso waxaa ka muuqda baasas wanaagsan ayuu bixinayaa. Fudeed baa ka muuqda si la maleynay ma aha. Isagoo hataa mar ku sigtay inuu gool dhaliyo, laakiin aan dhigi wuu dhaliyay. Laakiin wuxuu caawiyay gool badan oo dhashay, waa assist gareeyay. Marka arrinta soo horta ninkaas ma is dhigi karaa weli talentigii wuu sii wadaa oo wuu ciyaari karaa sanado badan, ma is dhigi kartaa. ninka Maxamed Cumar ay leeyihiin maadaama uu nin horaan Bologna u ciyaari jiray uu yahay waxa uu sii dheereysay khibrad ayuu u leeyahay ku ciyaarinta salaxga kaasoo uu ku soo ciyaaray Garissa ilaa iyo dhulkan. Marka khibradiisa ayaa ka caawisay in badan taasoo uu soo markii banaanku ku maqnaa gadaal laga keenay horta ninka. Markaasuu kala kiciyay bahasha ilaa iyo 5 gool u dhaliyay goolal far badanna wuu caawiyay.
marka nin aad uga muuqdo ahaa garoonka kaasoo oo markii dambeba tiimkaba canshuurtiisa kor u soo kiciyey xitaa faanka qaar dad oo faanska ahaaba silig leego meesha galay aad iyo aad sidoo kale ciyaartan waxaa ka muuqata marka ciyaarta garoonka la soo gelaya dhalinyarada aad bay isu marxabeynayeen jaceyl badan dhexdooda ah iyo kubad jaceyl ayaa ka muuqatay maadaama ayin rag hore u soo ciyaari jiray oo dhawaantan garoomada ka maqnaa hase aad dib ugu soo laabtay ma is leedahay ciyaartan oo kale sii wadi doonaan oo way sii soconi doontaa ciyaartan oo kale haddii ay sii wadaanna farsamadan hadda ay ku ciyaaraan waxbay ka bedeli karaan ma is leedahay sidaas leeyahay inay wax ka bedeli karaan ay horna u socon karaan waxyaalo badan ay ka bedelayaan guusha marka labada ciyaar doonaan waxaan maleynayaa in goolal fara badan ay ku badan doonaan maadaama ninka legendaga Maxamed Cumar uu meesha joogo iyo ninka kale oo Haruun ah aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal halkani waxaad ka daawanaysaan ciyaar dhexmar